السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما نقيت يوتيوب وين سلامي عاشركن wuxuu ku saabsan yahay su'aal sahlan oo hadda ka hor aan ugu jawaabay Axmed Shafeec ayaa wax la weydiiyey sawirka fiidiyoga ka hore maxay waa thumbnail-ka marka aan tuso marka sidaan ku tuso marka Photoshop-ka ayaan isticmaalaa ujeedaa thumbnail-ka sidan ayaa u isticmaalaysaa sida u aragtid waxaa ogaanaysaa marka thumbnail-ka isticmaalaysa inta badanba Photoshop-ka meelo badan lagu sameeyaa laakiin Photoshop anaa isticmaalaya file ayaan leeyahay new ayaan leeyahay kadibna ujeedaa waa YouTube-ka kan ayay qaabilaysaa videoga oo ah 1280 intaasuu yahay kadib markaa furtid wuxuu design-ka ku siinaa marka shakliga iyo wax saa u rabtid ayadaa u samaysanaysid kadib markaa videoga samaysatid waxaad imaanaysaa YouTube-kaaga ayaad imaanaysaa hadda videogan ayaan thumbnail-ka rabaa inaan u sameeyo markaa videoga diyaarsatid waxaad tegaysaa meesha ka qoran tahay custom thumbnail ayaad ku dhufanaysaa kadibna wuxuu kaa dalbanayaa sawirkii aad u baahnid inaad gelisid kadib sawirkii markaas aad u rabtid u diyaarsatay ayaad gelinaysaa kadibna waa diyaar sawirkii delete ayaan ku qoray open ayaan leeyahay sawirkii marka wuxuu sameynaa videoga saddexdan qayb ayuu u qaybsan yahay video ahaanta waa u isticmaali kartaa laakiin thumbnail-ka wuxuu ku sameynaa videogaaga inuu oo dadka aad u xiiseeyaan iyo inteena daawan wuxuu ku saabsan yahay sababtoo taas ayay ku caddaynaysaa marka thumbnail-kaaga marka intoo dhammaan aan tuso marka waxaa ujeedaa thumbnail-kii uu qaatay sidaas ana waxaa leedahay save ayaa u leedahay kadib dan videogaagii si toos ayuu u qaata ujeedaa kana sidaas u qaatay marka sawir waa waxaan qofkii daawanayn ma arkayo marka insha Allah bidna karim waa thumbnail ayaa lahaa intaas si fiican aan ogaan kartaa wana fahamsan tahay marka insha Allah bidna karim su'aasha waxaan aaminsanahay inaan kaga jawaabay wayna fududahay insha Allah bidna waqti imtixaan ayaa lagu jira su'aalaha aad ayaan u gaabiyay inaan ugu jawaabo assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh wa jazakumullahu khairan